daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad wararkii oo calaadina diblomaasiyadda horfadhi media waa 26 bishii afraad waa 2020 waa 3 Ramadaan dhamaanteen Ramadaan Kareem daawadayaasha qiimaha meel kasta joogtaan si kasta oo maqlasaan iyo waqti kasta ku jirtaan aan ku bilaabo markaan ugu horeysiyo daawadayaal shirkadda diyaaradaha al-Ittihad dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay kordhisay mar kale hakinta duulimaadkii ay soo bilahay war qoraal ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ayaa waxay sheegtay in ay diyaaraduhu sii fadhiyi doonaan ilaa 16 bisha May iyadoo sheegtay inay taa uga gol leedahay qabka dadka diyaaradaha la duulaya iyo waliba in adduunku uu si intuu noqonayo la sugo ayay tiri shirkadda Ittihad Airways waxay sidoo kale sheegtay in qorsheedu markii hore uu ahaa in horaanta bisha May la bilaabo duulimaadada dib loo bilaabo laakiin haatan ay ka fiirsanayaan tan iyo 23 bishii Maarso dalka isku tagay Imaaraadka Carabta diyaaradihiisa dhan waa la hakiyay isla markaana ma jirin wax diyaarada oo soo degisay ama ka baxaysay goorsi horeysana shirkadda Emirates iyaduna duulimaadka ugu weyn ee dalkaasi ayaa goor sheegtay in kowda bisha May ay bilaabi doonto laakiin war dheeraad kama soo saarin mar dambe diyaaradaha caalamka oo dhan ayaa kala xiran badankoodii ayagoo marka laga reebo diyaarado si gaar ah dad u qaadaya dawladahoodu ay u asteeyeen haddana waxa jira kala xanimaad weyn oo dunida ah taasoo uu sababay xanuunka faafaya isla weyn dhibaatada xooggan u wada daawadayaal maalmihii ugu dambeeyay waxaad la socoteen horfadhi media aad kala socoteen in hogaamiyihii waqooyiga Korea ninkii kaknaa ee awoodda badnaa Kim Jong Un la sheegay inuu xanuunsanayay isla markaana xanuunkiisa uu ku yimid kadib markii la sheegay in qalliin dhinaca wadnaha uu galay haatan warar kala duwan ayaa waxay saacadihii ugu dambeeyay ka soo baxayeen xaaladiisa nololeed iyo tiisa markaas caafimaad ayadoo si kala duwan looga hadlayo balse Kim Jong Un oo la aaminsan yahay in 12 bishan uu qalitaan galay muddo 13 maalmood ka hor ayaa waxa walaac u sii batay markii shalay maalintii Sabtida ahayd laga waayay dabaaldega maalinta ciidanka qalabka sida ee dalkaasi ee dabaaldegooda 88 sanadood ka hor ayaa la aasaasay ciidanka lagu dhaatay ee dalkaasi loo yaqaan the Korean People's Revolutionary Army ama ciidanka kacaanka ama ciidanka markaasi kacaanka iyo kacdoonka dadweynaha ee dalkaasi reer Korea jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Korea DPRK hadda warbaahinta ismaamulka Hong Kong ee la yiraahdo Hong Kong Broadcasting Network ayaa waxa ay sabtidii goor dambe ay habeennimadii xalay ahayd way dabcan ay ku soo warantay in Kim Jong Un uu geeriyooday waxaana ay ciwaan uga dhigtay warkaasi inay ka heshay waxay ku sifaysay ilo lagu kalsoon yahay wargeys isagana la ka soo baxay dalkaasi Japan oo la yiraahdo Japanese Maxim ayaa wuxuu dhanka kale isaguna uu sheegay in xaaladda Kim Jong Un uu ku jiro ay tahay xaalad culus oo ah in مسقحان ودنتاي مسقحدي سنة دمعتاي لكن وودنيسو dhaqdhaqaaqayo laakiin uu qof tawafiyay ayay markaas sheegeen sida ay markaas wakaaladaasi sheegayso balse wararkii ugu dambeeyay waqooyiga Korea warbaahinteeda the North Korean Media Leader KCPN Korean Press Central Leader Media waxa ay u waramaysaa si caadi ah inkastoo aysan soo hadal qaadin maqnaashaha ninka wadankaasi xukumayay haddana waxay caadi uga hadlaysaa horumarka kale dalka iyo wararkeeda caadiga oo dhan ayaa ku jira dhinaca kale dalka Mareykanka madaxweynihiisa goortii horeysay ayuu arintaas wuxuu ku tilmaamay haba yaraatay inuu san warsugan ka haynin mid kamid ah sirdoonka dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka Reuters wuxuu u sheegay in aysan warsugan ka haynin ninkaas isla markaana warar lagu kalsoon yahay oo cadeynaya xaaladda liidasho ee Kim Jong Un ama geeriyeed aysan gacanta ku hayn si kastaba ha noqoto dalka Shiinaha hadaba ayaa waxaa la sheegay in xaaladda ay ku tooseen ninkaas in liidato kadibna waxay u direen baa team dhakhaatiir ama koox dhakhaatiir oo heer sare ah kuwaas oo ka caawiya ayaa la yiri dhibaatada ninkaas la tacaalaya dhakhaatiir uu ka tabarroonaaday ee xaaladiisu ila daala dhacayaan haddaba haddaynu dib u noqono wargeyskan la yiraahdo Japanese Magazine waxa uu leeyahay hogaamiye Kim Jong Un waxa uu dhulka ku dhacay 12 bishii Abriil isagoo indeenayay meel markaasi kamid ah shaqooyinkiisa caadiga ah oo indeen ku jiray baa la sheegay in uu kufay oo dhulka ku dhacay kadibna uu suuxay waxa la sheegay in dhakhtar markaasi la socday oo nin la socdo dhinaca caafimaadka ah oo mar walba la socday uu siiyay adeega CPR ka la yiraahdo
wadeega qofka marka uu suuxo loo fidiyo uu siiyey kadibna muddo yar kadib uu ula cararay isbitaal ku dhawaa halkaana ay tahay meesha ninka lagu qalay taasina ay dhalisay khilaaf iyo waliba waxa la yidhi degdeg in loo qalay ninkaas kadib markii la arkay ayaa la yidhi in wadnihiisa ay dhibaato soo food saartay ninkana waxaa la xaqiijiyay haatan inuu xanuunada dhiigkarka iyo macaanka qabo miisaankiisa iyo waliba markaasi hilibkiisa faraha badan ee saarana ay dhibaato kale la xadlay ay ku ahayd sigaarka cabkiisa iyo shaqada badan uu qabtaana ay u sii dheereed bal arrimahaas oo dhan mid ka mid ah xildhibaanayaasha hadaba arrimaha dalka Korea ku taqasusay ee maxadka daraasaadka la yiraahdo Foundation for the Defense of Democracy la yiraahdo Maxwell David Maxwell waxa uu leeyahay marka ay timaado waqooyiga Korea in aad war ku saabsan hogaamiye noocaas oo kala aad hesho waxaad kaliya warka ka sugtaa waxa weeye buur dawladda waqooyiga Korea ayuu Maxwell oo wuxuu kaloo yiri marka ay noqoto in aad rabto inaad xuquuq iyo war aad wuxuu yiri inaad si xor ah war aad u hesho waa inaad dawladda ka sugtaa laakiin wuxuu yiri waxa rajo ah waxaan xaqiijinay ayuu yiri in dhawaanahan dalka waqooyiga Korea ay yaalaan 6.5 milyan waa 6 milyan iyo 500 oo kun oo telefoonada casriga ah maqalaya muuqaalka qaada weeyaan telefoonada casriga ah sidaa daraadeed wuxuu yiri haddii telefoonada noocaas smartphones la yiraahdo ay halkaas yaalaan taa macnaheedu waxa weeye wuu warku inuu intii war ka dheeree karo oo warar badan la heli karaayo ayuu sheegay isagoo rajo ka muujiyay inay taas jirto haddaba waxa isweydiin mudan haddii ninkaasi geeriyoodo sidee bay inta badan waqooyiga Korea ma qarisa geerida hogaamiyaashoodii ugu dambeeyay dhintayna sidee ayay u beexaameen ama u geeriyoodeen 2011 ayaa aabihii Kim Jong Il uu geeriyooday kadib markii uu wadna istaag ku dhacay ama wadnu istaagay heart attack uu haleelay aabihii markaasi waxa uu ahaa ninka isagu bedelay markaasi awowgii Kim Il Sung isaguna isla xanuunkan hadeerta ninkan loo maleynayo inuu haleelay ee wadna istaagaba asagana 1994 baa wadnu istaagay awowgii marka waxa laga yaabaa in ay jirto xanuun ay kala hidaysanayaan oo dhinaca wadnaha ama dhinaca macaanka iyo xanuunada noocaas oo kale waa suure inkastoo aysan ku caday warbixintan hadeerta ay soo saartay wargeyskan aanan wararka ka xiganayna Japanese magazine kale yiraahdo waxaase la yiri hadeerto hadii uu geeriyoodo waxa laga yaabaa in ay muran ka yimaado cidda ninkaasi bedeli doonto inta badanna sida sharciga uu qorayo waqooyiga Korea 4 maalmood gudahood waa in lagu dhawaaqaa geerida hogaamiyaha kadibna lagu dhawaaqaa gudoomiyaha golaha sare ee dalkaasi waxa la aaminsan yahay in qofka ugu dhow hadeerto ninkaasi uu aad u jeclaa asagoo gacan saarka dhow ula lahaa ee gabadh walaashiisa oo Kim Hyun Chol la dhaho 30 jir taasoo dhowr jeer la arkay iyada oo la socota walaalkeed oo dhowr jeer safreen la aas taasi waxay ka dhigan tahay la yiri in gabadhaasi u carbisantahay laakiin waxa la yaab leh baa dalka kan oo saas oo kala ah sida ay u hogaami karto haweeney baa leeyahay oo amar adag iyo dawladnimo adag ay ka jirto waxaase la ogyahay inuu walaalkii oo aysan hooyadii dhalin oo Mareeshiya ku dilay 2017 kadib markii uu sumeeyay oo la sheegay in dilkiisa isaga loo qoray ama dusha laga saaray wararka ku saabsan Kim Jong Un way heli doonaa wixii ka soo kordhay waqooyiga Korea isbedel weyn baa ka dhici kara wax badan baana isbedeli kara hadii ay saas noqoto ee dawladda qiimaha leh wararka waa calaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan aan ku noqday wararka dhinaca xanuunka coronavirus-ka iyo waliba faafahan daran ee darsanaya dawladda qiimaha leh aynu fiirino ee daawadayaal ku dhawaad 200 oo kun ayuu kor u dhaafay xanuunka dhimashada adduunka oo dhan dalka Mareykanka ayaa hogaanka u haya xanuunka dhawaad 53 ayaa dhimanaya 1 milyan waxa kama yara dadka xanuunka haatan soo ridanayo hay'adda caafimaadka adduunka waxa iyaduna ka digtay in dalalku ay dadka xanuunka ku dhacay ay u sheegaan in ay xanuunka uusan mar dambe ku laba noqon doonin waxay sheegtay inaan wax cadeynaya la hadeerta loo haynin ama ay jirto walaac ku saabsan isbedel daraasaad cusub oo soo baxay oo sheegaya in xanuunku ku soo laba noqon karo ama ku soo laba kaclay karo qofka ayaa leeyahay waxay sheegtay inay kula talinayso dadka xanuunku uu ku dhacay inaysan isdhigan balse ay taxadarka si laba jibaaraan dhanka kalena dawladda dalka Britain ayaa iyaduna waxa xanuunku uu dilay shalay dalka UK shalay ugu dambeysay 813 ruux iyadoo la sheegay in ay sii socoto dhimashada dalkaasi ama sii cagacageenayso 20319 ruux Hindiya ayaa iyaduna waxay furtay qaybo kamid ah dalka iyadoo oo dadka u ogolaatay inay dhaqdhaqaaq soobiyaan waxaase la sheegay in ay wali taxadar weyn oo dalka Hindiya ay ku dhaqayeen 1.3 bilyan oo qof ay sameeyaan dalka ay dariska yihiin ee Pakistan
Pakistan ayaa iyaguna sidoo kale waxay sameynayaan xoogaa khafiifin ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna waxa uu walaac ka muujiyay sida warbaahinta dalka Mareykanka oo la dhaqmayso waxaana uu sheegay inuu haddan iyo kadib uusan garanaynin wax qiimo ah in ay u leedahay oo waqtigiisa uu ku geliyo ayuu yiri inuu maalin walba warbaahinta la hadlo maadaama buu yiri uu khaati ka taagan yahay warbaahinta dalkaasi oo si xun oo la dhaqmaya wuxuu yiri waa maxay ujeedka aan ka leenahay inaan aqalka cad maalin walba aan ku qabto ayuu yiri shir jirayd ayadoo warbaahinta waaweyn ee dalka Mareykanku aysan i weydiinaynin waxaan ahayn ayuu yiri su'aalo colaadeed ayna diidayaan inay ka waramaan xogta iyo xaqiiqada saxda ah ayuu yiri madaxweyne Trump oo barta Twitter-kiisa cabasho way ku soo qoray madaxweynaha iyo warbaahinta ayaa iskalay masaacadii ugu dambeeyay iyadoo wariye ay hadallo kulkul isdhaafsadeen kadib markii lagu qabsaday madaxweynaha arinta sunta gacmaha lagu sifeeyo markaasi jeermiska gacmaha dusha ka disha lagu talagalay in uu ku baaqay in la isku duro arintaas ayaa dad badan waxay sheegeen in laga yaabo in loo arko baa leeyahay in dadka qaarkood ay arkaan hadalkaas madaxweyne maadaama uu ka soo duulay inuu sax yahay kadibna ay arrintaas sameeyaan kadibna ay geeriyoodaan sida horey loo sheegay in ayaamihii u horeeyay ee uu ku baaqay in la isticmaalo dawada kaneecada la sheegay in dad waayeel ay dawadaas isticmaaleen kadibna ay geeriyoodeen gaar ahaan gobolka Arizona ee dalka Mareykanka sida laga sii xigtay gorsii horeysay daawasha qiimaha leh fariiqamo qodna wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ama gaanka gandunida oo dhan daawadayaal qaybta dambe wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda